بسم الله الرحمن الرحيم وهبينبه تلا مركله iyo barnaamijkii qobanaha qodobada aridin kuga haynana waxa ka badacas faahfaahin ka soo baxaysa kulan caawa xasaasi ah oo ay yeesheen Trump iyo Netanyahu iyadoo labada nin kulankooda si weyn diiradda ay ugu saareen arrimaha Iran. Netanyahu ayaa la sheegay in uu u soo bandhigay Trump xog sirdoon iyo in la duqeeyo goobo ka mid ah xarumaha nuclear-ka ee Iran. Trump oo aan qaadan go'aan la xiriira arrintaasi iyo Israa'iil ka walaacsan. Iran waxay si cad u diiday hindiso Cumaan ay soo bandhigtay oo ku aadan furitaanka marinka Hormuz. Waxaana sidoo kale ay soo bandhigtay hindiso iyadoo ay wadato. Dowladda waddanka Jad ayaa ku dhawaaqday inay ka baxayso maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay diyaaradan waxay duulimaad hawada ku jirtay 24 saacadood 3 qaaradood ayayna isaga kala gudubtay waxaana isaga kala dooshay wadamada Australia iyo Faransiiska sheeka xiisa leh oo wax ka bedeli doonta mustaqbalka iyo duulimaadka rayidka ayaan idin haynaa dhammaan waxaynu ku bilaabaynaa xiisadaha ka aloosan badda cas iyo marinka Bab al-Mandab halkaasi oo Xuutigu ay sheegeen in aysan mari karin maraakiibta laga leeyahay dalkaasi Sacuudiga wararkii ugu dambeeyay ee amurahan haddii aynu eegno dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay gantaalo nooca plastiga ku weerareen markab shidaal oo Sacuudigu leeyahay iyagoo ku eedeeyay inuu jabiyay wax ay ku tilmaameen xanibaadda badda ee ay ku soo rogeen Sacuudiga ee badda cas isla markaasna uu iska indha tiray dignina loo diray afayeenka militariga Xuutiyiinta General Yahya Sari ayaa daboolka ka qaaday in weerarka uu ku qasbay markabka in uu dib uga laabto safarkiisii waxaana uu sheegay in weerarkan qayb uu ka yahay tillaabooyinka ay ku xoojinayaan xanibaadda ay ku dhawaaqeen war kale oo la xiriira xiisadan ila xogogaal ah ayaa sheegay in Shiinaha uu wadahadallo toos ah la yeeshay Xuutiyiinta si loo hubiyo in maraakiibta shidaalka ee Shiinaha ay si nabad ah uga gudbaan koonfurta badda cas iyadoo aan la weerarin ilo wareejada ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale Beijing ay Xuutiyiinta si toos ah uga codsatay damaanad qaad ku saabsan marin amaana waxaana la sheegayaa warkan in laga soo xigtay ilo wareedii uu ku jiro sarkaal Iiraaniya Xuutiyiinta ayaa 20kii bishan July waxay ku dhawaaqeen xanibaad badeeda oo ay sheegeen in ay saareen Sacuudiga taasoo si balaarisay weerarada lagu hayo maraakiibta sida shidaalka iyo badeecadaha kale xilli xiisada gobolku wali cirka ay ku laaran tahay waa hagaag wararkaasi waxay ku soo kordha waynu arki doonaa markan waxaynu eegeynaa wadanka Jad wadankaasina waxa uu ku dhawaaqay inuu iskaga baxay maxkamadda dambiyada dagaalka aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amurahani dowladda wadanka Jad ayaa ku dhawaaqday inay bilowday geedi socod ay uga baxayso maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC iyadoo ku eedeysay maxkamaddu inay tahay mid aan waxtar lahayn isla markaasna si gaar ah u beegsata dalalka Afrika mas'uuliyiinta Jad ayaa sheegay in warqad rasmi ah ay u gudbiyeen qaramada midoobay si loo bilaabo ka bixitaanka heshiiska Roma kaas oo saldhig u ah ICC sida uu dhigayo heshiiska geedi socodka ka bixitaanka wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 1 sano Jad ayaa noqotay wadankii afraad ee Afrikaan ah ee tan iyo 2025 ku dhawaaqa inuu ka baxayo maxkamadda ICC kadib markii Niger, Mali iyo Burkina Faso ay sanadkii hore ku dhawaaqeen inay isaga baxayaan maxkamadan fadhigeedii uu yahay magaalada Hague ee dalka Netherland. ICC ayaa sidoo kale waxay wajahaysaa caqabado kale iyadoo toddobaadkii hore xilka laga qaaday dacwad oogihii guud ee maxkamadda Karim Khan kadib eedeymo la xiriira anshaxumo galmo. dhanka kale Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aanka Jad
waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa horay u sheegtay in ay wado olole ay ku wiiqayso ICC iyadoo ku doodaysa in maxkamaddu waa sida hadalka loo dhigay ee qatar ay ku tahay madax banaanida dalalka. bishii February madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar cunaqabatayn lagu soo rogayo ICC sababo la xiriira baaritaanada ay ku wado Israa'iil. xafiiska arrimaha dibadda ee u qaabilsan Afrika ee Mareykanka ayaa sidoo kale ku baaqaya in dalal kale oo xubno ka ah heshiiska Rome ay dib uga fiirsanayaan xubinnimada, isagoo xafiisku sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka JAD ee ka bixitaanka ICC. sidoo kale Israa'iil ayaa la sheegay inay soo dhaweysay go'aankii xilka looga qaaday Karim Khan oo bishii November amar soo qabasho u jaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant, kuwaasi oo lagu eedeeyay dambiye dagaal iyo dambiye kanana bini'aadantinimada oo la xiriira dagaalka Gaza. Israa'iil waxay sidoo kale soo dhaweysay go'aanka ay gaareen wadamada Niger, Burkina Faso iyo Mali oo ah inay ka baxaan maxkamadda ICC. waa hagaag haddaba arrintan haddaynu dul joogsanno, dad badan waxay leeyihiin maxaa wadamadan Afrikaanka gaar ku ah haddiiba qaanuunkan wadamadii saxiixay aysan ka dhabaynayn. tusaalaha waxaa loo soo qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markuu ka dhoofay shalay Israa'iil, wuxuu sii maray dhowr wadan oo ka mid ah Yurub oo ah wadamadii wax ka saxiixay heshiiskii Roma ee lagu dhisay maxkamadda dambiyada dagaalka. arrinta horta waxaa bilaabay wadanka Hungary baa bilaabay markii Israa'iil lagu soo rogay in la soo qabtay Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga. Hungary oo Israa'iil u garaabaysa ama u hiilinaysa ama u daraaninaysa ayaa waxay qaadatay go'aanka ay kaga baxayso maxkamadda, inkastoo hadda ra'iisul wasaarahan cusub uu sheegayo inuu dib ugu soo laabanayo. kadibna wadamadan Afrikaanka ayaa iyaguna ka baxay oo isle dagaalka aad ku jirtaan arma hadhowtadii laydin qabsadaa. laakiin sheekada la yaab kale waxay noqotay shalay ra'iisul wasaaraha Israa'iil markuu dhoofayay diyaaradiisii horta halkaanay ka baxday. Israa'iil maxay samaysay marka diyaaraddu? waxay sii martay Greek, waxay sii martay Talyaaniga, waxay sii martay Faransiiska. saddexdan wadan waa saddex wadan oo midowga Yurub ka tirsan, isla markaasna maxkamadda wax ka saxiixay. weliba Talyaaniga waa meeshii lagu dhisay maxkamaddan. nin maxkamaddu ay doondoonayso ay tiri hala soo qabto ayaa dul maray meeshii maxkamadda lagu dhisay. kadibna maxaa dhacay? Netanyahu wuxuu iska ilaaliyay inuu maro Burtuqiiska iyo Spain iyo Ireland sidoo kale. diyaaradii markii aaday dhanka badda Atlantika, Canada ayay ka dhacday. la soco Canadana way saxiixday maxkamadda. kadib Mareykanku tegey. marka Mareykanka la iskuma haystaba. Mareykanku ma saxiixan maxkamaddan, Israa'iil lama saxiixin. laakiin afartan wadan oo saddex ka mid ay yihiin saddexdii wadan ee ka mid ah wadamada Yurub oo mid ka mid ah waa Talyaaniga, meeshii lagu dhisay maxkamadda ayuu ra'iisul wasaaraha Israa'iil dul maray. ninkan oo dacwadda ku soo oogay Netanyahu, Karim Khan, asalkiisa waa Bakistani laakiin waa British, waa Ingiriis. 88 wadan ayaa u codeeyay in xilka laga qaado. isagoo wuxuu leeyahay arrinta la igu haystaa waxba kama jiraan. laakiin gabar xafiiskiisa ka shaqeysa waxay tiri ninkan uu gacmeeyay. isagoo laakiin arrinta soo beeninaya. garyaqaanadiisa ama qaranadiisa isaga u doodaya waxay leeyihiin hanaanka loo maray dacwadan iyo xilka qaadista intuba qaanuun ma ahan. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil wuxuu qiray wadamada ka qayb qaatay inay ka codeeyaan ninkan xilka laga qaado ama u codeeyay in badan oo ka mid ah ay galaangal u galeen. marka hadda waxaad moodaaba Israa'iil oo 2 sano 3 sano ka hor go'dan ku jirtay inay hadda helayso wadamo kala duwan. weliba dhanka Latin America arrin baa ka soo socota. wadamada Latin America intooda badan waxay ahaayeen wadamada garabka midig oo aad u taageeri jiray qadiyadda Falastiiniyiinta. hadda waxaa soo baxay garabka midig
oo Israa'iil aad u taageeraya waxa ugu dambeysay Colombia doorashada ka dhacday Gustavo Petro xilkii waa laga qaaday dhanka bidixda ahaa nin waxa yimid midigta ah oo wuxuu leeyahay xitaa waxa ma xirayaa safaaradaha ku yaala dhowr wadan oo Ethiopia xitaa ka mid tahay wuxuu leeyahay safaaradii lagu waday in laga furo magaalada Ramallah ee maamulka Falastiiniyiinta waa joojinaya aqoonsigana waa ka laabanaya safaaradda Colombia waxaan geenayaa buu yiri Qudus la haysto Tel Aviv waa ka wareejinaya maxaa kaloo dhacay Venezuela bacdama meesha laga saaray Maduro oo ahaan jiray nin aad iyo aad arrimaha Falastiiniyiinta ugu ololeeya imikana maxkamad la saaray kadib markii wadankiisa laga qabtay bishii January dowladdan cusub waxay tiri maxkamad oo ka baxayna ICC maxaa kaloo dhacay Honduras waxa isna qabsaday nin garabka midiga oo Trump aad u taageerayo Chile sidoo kale waxa qabsaday garabka midig Argentina waan ognahay iyada Mele isagu wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay buu yiri ninka haysta hogaamiyaha kaliya ee Israa'iil aan ahayn ee haysta diinta Judaismka wanikaas diinta Yahuudu qaata isagu madaxweynaha Argentina maxaa kaloo hadda socda Brazil marka arrinta la isku haystaa Brazil waxa tartamaya wiil oo dhalay madaxweynihii hore Bolsonaro bacdama la xiray oo dhanka midigtana uu ahaa wiilkiisa tartamaya waxa taageeraya Mareykanka iyo Argentina iyo Israa'iil iyo kulli wada taageeraya Argentina marka maxay samaysay wafdigii Mareykanka oo booqashada ku imaan lahaa wadanka Argentina oo doorashada goobjoog ka noqon lahaa waxay u diideen inay wadanka soo galaan xitaa Yurub ka bilaabatay arrinta wadamadii Slovakia kaloo kamid ah oo mamnuucday hubka Israa'iil loo dhoofiyo hadda way ogolaadeen marka hadda waxa leeyahay Israa'iil xitaa hadda waxay ku soo laabanaysaa masraxa diblomaasiyadda 2 sano ka hor go'doonka ay ku jirtay iminka ka soo baxaysa maxaa ugu wacan waa maamulka Trump oo taageeraya ciddi ka hor timaada gacantu muruujinaya marka Sacuudiga maxaa lagu yiri haddaad doonaysana in idin dhisno warshada tamarta nuclearka waa in Israa'iil aqoonsataan arrinta markaas maraysa waxaan u gudbi doonaa kulanka gordhaweyta ku soo dhamaaday aqalka cad ee wadanka Mareykanka iyo Iran oo soo saartay war culus oo la xiriira Mareyka Hormuz iyo waliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka iyo qodobo kale oo hadda soo kordhay intaynu barnaamijka difaac ay la tacaaleen diyaarada drones oo dhanka Iraq laga soo diray oo la sheegay in ay ku wajahnaayeen xarumaha shidaalka laga soo saaro ee wadanka Sacuudiga waxaana la sheegayaa arrintan inay ku soo aadayso iyadoo horay weerar caynkana laga soo qaaday wadanka Iraq inkastoo kooxaha maleeshiyaadka Shiicada ee Iran ay taageerto ee wadanka Iraq ay beeninayaan arrintan dowladda Sacuudiga horay waxay u sheegtay inay xaq u leedahay inay ka jawaabto weeraradan lama oga ilaa iyo hadda cid ka dambaysa weeraradan diyaaradaha droneska loo adeegsaday ee lagu weeraray goordhaweyta wadanka Sacuudiga warkan wixii ka soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii alla idmo iminkana Washington waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira kulanka goordhaweyto aqalka cad ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan labada nin tan iyo dagaalkii Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qaadeen Iran kulankan ayaa ah kii 8aad ee labada hogaamiye ay yeeshaan tan iyo markii Trump dib ugu soo laabtay xafiiska aqalka cad Netanyahu ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen waa si hadalku yiri kuwa aad u wanaagsan isagoo farta ku fiiqay in isaga iyo Trump ay isku raaceen in Iran aan loo ogolaan inay yeelato hub nuclear kulanka ka hor Trump ayaa wareysi uu siiyay telefishinka Fox News ee laga leeyahay Mareykanka waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu ku sugan yahay waa si hadalku u yiri boos aad u xoogan isagoo ku celiyay inuu diyaar u yahay inuu amar ku bixiyo weerar cusub oo lagu qaado Iran haddii wadahadalladu iyo diblomaasiyaddu ay fashilmaan wuxuu sidoo kale ku hanjabay in la burburin doono xarunta dhulka hoostiisa ku taal ee loo yaqaan buurta Jabal al-Fas haddii heshiis la gaari waayo warbaahinta Israa'iil ayaa tabinaysa
in safiirka Israa'iil ee Washington uu kulanka la yimid qariirado taasi oo loo fasiray inay muujinayso rabitaanka Israa'iil ee ah in ciidankeeda ay ku sii hayso koonfurta Lubnaan. laakiin waxaa la sheegayaa Trump quddiisa in uu wato qorshaha ah Israa'iil ciidankeeda kala baxdo koonfurta Lubnaan. geesta kale wariyaasha ku sugan aqalka cad ayaa waxay sheegeen in Netanyahu uu ka soo galay aqalka cad albaabka dambe, arrin ay qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil ku fasireen isku day lagu yaraynayo muuqaalka kulanka bilowgiisa. wararka ayaa sidoo kale tilmaamay in markii hore la filayay in Netanyahu uu ka soo galo albaabka hore ee aqalka cad. ka hor kulanka dibadbaxayaal taageersan Falastiiniyiinta ayaa isugu soo baxay bannaanka aqalka cad iyagoo watay calamo Falastiin iyo boorar ay ku cambaareynayaan taageerada Mareykanka ee Israa'iil. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxay ku baaqayeen in la fuliyo amarka soo qabashada ee ay soo saartay maxkamadda dambiyada dagaalka, iyagoo sheegaya in aysan mudnayn in la soo dhaweeyo Netanyahu, iyagoo sheegaya waxay ahayd in uu ka soo hor muuqdo maxkamad. waxaana dadkaasi sidoo kale ay ku doodayeen in la joojiyo taageerada la siiyo Israa'iil. dhanka kale Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu la yeeshay madaxweyne Trump ay isku raaceen sida hadalka uu yiri hadafka wadajirka ah ee ah in Iiraan aan loo ogolaan inay yeelato hub nuclear. war kale oo arrimahan la xiriira sarkaal sare oo Israa'iili ah ayaa u sheegay telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay in Israa'iil ay ku jirto xilli aad u xasaasiya kadib kulankii aqalka cad ee dhexmaray Trump iyo Netanyahu. sarkaalka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu dhawaan gaari doono go'aan ku aadan jihada u dhaqaaqi doono gaar ahaan xaaladda Iiraan. waxaana uu xusay in Israa'iil aysan cadaadis saarayn Trump balse sidoo kale aysan iska indhatiri karin xaaladda, isagoo sheegaya in Netanyahu uu soo bandhigay aragtida Israa'iil. sarkaalku wuxuu sheegay in Netanyahu uu Trump la wadaagay xog sirdoon oo ku saabsan Iiraan, isagoo ku dooday inaanay jirin waddo kale oo aan ka ahayn in la weeraro goobihii aan horay loo beegsan, xarumihii Iiraan ee dib u dhistay iyo bartilmaameedyo lagu wiqi karo sida hadalku uu yiri nidaamka dalkaasi. xagga Iiraan ayaa Cumaan waxay u soo jeedisay qorshe ku meel gaar ah oo dib loogu furayo marinka Hormuuz, kaas oo dhigaya in hal jiho oo maraakiibta soo gelaysa laga sameeyo biyaha Iiraan, halka qayb ka mid ah maraakiibta baxaysana ay mari karaan isla biyaha Iiraan. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Qaasim Qaribabadi ayaa telefishinka dowladda Iiraan u sheegay in Iiraan ay diiday qorshe ay Cumaan soo jeedisay oo ah in la sameeyo laba marin oo loo kala qaybsanayo si siman maraakiibta gooshaysa. wuxuu sheegay in qorshahaasi uusan waxba ka qabanayn walaacyada amni ee Iiraan inta aan la xaqiijin xasilooni waarta oo gobolka ah. Qaribabadi ayaa waxa uu sheegay in marinbiyoodka Hormuuz uu sii xirnaan doono haddii Masqad ay diido waa Cumaane qorshaha Iiraan ay soo jeedisay, isagoo intaa ku daray in Tehraan aysan weligeed aqoonsan marinbiyoodka koonfureed ee laga sameeyey xeebaha waddanka Cumaan. waxaana uu sheegayaa in arrintaasi ay ka hor imaanayso mabda'a istiraatiijiyadda ee Iiraan ay wadato. arrintu marka halkaasi maraysaa Iiraan xitaa Cumaan bay ka diiday. Cumaan waxay leedahay dhankeennana waxaa laga samaynayaa wadiiqo maraakiibta marto, annaga dhankeennana waxaa laga samaynayaa marin kale. laakiin Iiraan waxay leedahay waxaas anaga ma aqbalayno, arrintan ammaankeena weli khatar bay ku tahay, waa in annaga dhan kaga dambeeyaa marinka Hormuuz. Trump muxuu ku jawaabi doonaa waynu arki doonaa. haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. sheekadan waxaan idinkugu haynaa diyaarad hawada ku jirtay 24 saac in ka badan. malaha dadka rakaabka diyaaradda saarnaa miyay daaleen mise way nasteen mise waa seexdeenba, waayo diyaaraddu waxay isaga kala gudubtay 3 qaaradood. waxay ka soo duushay waddanka Australia, waxayna timid waddanka Faransiiska. waxaana arrintan loogu talagalay mustaqbalka in wax laga bedelo hababka duulimaadka diyaaradaha, gaar ahaan
inay meelo kale ku sii hakadaan oo diyaaraduhu ay ka sii gudbaan in la heli karo markaa diyaarad toos ah 24 saacadood ayaa hawada ku jirtay haddaba aynu eegno sheekadan iyo sida warbaahinta ay u qabsatay waa tahay diyaarad nooceedu uu yahay Airbus A320 ayaa waxaa loo dhisay mashruuca loo yaqaan Sunrise ee shirkadda dayuuradaha Australia ee Qantas talaadadii ayay la soo gabagabeeyay duulimaadkan tijaabada ah talaadada waa maanta iyadoo 24 saacadood iyo 24 daqiiqo diyaaraddu ay ku jirtay hawada kadib markii ay ka soo duushay magaalada Melbourne ay ku degtay magaalada Toulouse ee waddankaasi Faransiiska xogta hagista duulimaadyada ayaa waxay muujisay in diyaaraddu ay martay badweynta Pacifiga waqooyiga America iyo badweynta Atlantikada ka hor intii aysan gaarin Yurub ka hor degitaankeeda kama dambaysta ah diyaaradda ayaa samaysay dulmar hoose oo ay mar kale hawada ugu kacday ka hor intii aysan 13 daqiiqo kadib si caadi ah ugu digin garoonka ku yaal magaalada Toulouse duulimaadkan wuxuu qayb ka yahay olole tijaabo ah iyo shahaado siin oo soconaya ku dhawaad 2 bilood kaas oo lagu qiimeynayo nooca masaafada ee diyaaraddan A350 tijaabooyinkan waxaa ka mid ah han shidaal oo dheeraad ah oo qaada 20,000 oo litir nidaam cusub oo maareynta shidaalka ah iyo in ka badan 1,000 dareeme oo la socda waxqabadka diyaaradda shirkadda Qantas ayaa qorsheynaysa in diyaaraddan ay u adeegsato duulimaadyo toos ah oo maalin kasta ah oo u dhaxaynaya Sydney iyo London kuwaasi oo la bilaabi doono bisha Oktoobar 2027 iyadoo sidoo kale la qorsheynayo in ay bilowdo duulimaad toos ah oo u dhaxeeya Sydney iyo New York diyaaraddan ayaa waxay qaadi kartaa 238 qof oo rakaab ah waxaana loo qaabeeyay in ay fuliso duulimaadyo ganacsi oo socon kara ilaa iyo 22 saacadood oo diyaaraddu aysan meelna ku hakanayn ama ay toos u soconayso waa adduunyadii kala tagtay dadna dagaal iyo qabiil iyo hawl bay ku jiraan dadna waxaa laga hadlayaa 24 saac diyaaradda hawada ku jirta oo haddana 3 qaaradood dul martay cajiib inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وعينو برنامج كحيقة إن شاء الله إنت كهر رئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته